ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصروا المختار في تبليغه الحمد لله ناصر السنة بأهل السنة والصلاة والسلام على من أمرنا بالتمسك السنة وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني واندين سلام يا إلهي سبحانه وتعالى هيدين بركايو سلام كدب waxaan soo gudbinayaa qaybtii labaad fadhigeennii ku saabsanaa xadiisaanta nimanka raafidada ay maaragtay daliishadaan. kilib hore oo dheer oo 24 minute aan ka dhigay si fiican aan u habeeyay ayaa waxaa dhacday Facebook-na waan soo dhigay saad wada aragteen YouTube-kan galiyay ahayd sidii caadada u ahayd ayaka waana markii labaad ay igu sameeyeen dacwad bay iga gudbiyeen kadibna waxa weeyaan waa laga tuuray YouTube-kii فيديوغي waa laga tuuray YouTube-kii almuhim طيب dib ma leh طيب marka waxaan rabaa hadda inaan ka hadlo xadiiskii xadiis thaqalayn iyo xadiis al-itra xadiisaanta aad u taqaanaan inaan ka hadlo ayaan rabaa oo shiicadu ama raafidada Soomaaliyeed inta u badan ay daliishadaan. awalan waxaan rabaa in aad dhageysataan codadkooga. hadda waxaan idin furayaa ninka loo yaqaano Maxamed Cali Yuusuf Asaba'i Sagiir inaad codkiisa dhageysataan. ma ogtay rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wa alihi wasallam markuu sii dhimanayay inuu yiri taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitab Allah wa itrati. inuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam markuu sii geeriyoonayay waxaan idinkaga tagay laba shay haddaad qabsataan aydan umaynin. waa midka koobaad kitaabka Ilaahay وامدك لباده أهل البيت كي أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبدا شيء هدي أن قبسنه وحي إنجا إلى علينا أيام بعد النمذا إيوه إن نوضد الصحراء أجرب مرة ساد وذا مقليسين وحود دليشدي حديث العترة أيو دليشدي وحود ما وقتها إنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه قلت دردارا يعني دردارا كاسوها يعني أهل البيت كيسا إن لقب صده إن شاء الله تعالى وليسويدين دونا وحيابها أولجي هذا الكاسي إن شاء الله تعالى سؤالا أيان ماركتي كوجه دونا حديث كمركا عن تابته إن كهد الله هدو ربي قدره وليبا فيديو قدمات كيسا أيان كهد ليا سؤالها ويدين يا انت عندي أنك قدبنو حد هنوسو قدبنو ninka loo yaqaano Faarax Raafidi asaguna ku celinayo maxaan ku rahaa xadiiska ku celinayo baliila dhageysta hadaba ku soo dhawaada. waxa ku sugan muslimka tirmidiga ibn maajah oo ninka loo yaqaan albanina oo lafdi kale ku wariyo oo khaliifatayn nabigu inuu nooga tagay labo inni taarikum fiikum athqalayn imam muslim kitab allah wa itrati ahli bayti ما إن تمسكتم زيد بن أرقم بحديث كلا قولنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي وأهل بيتي ولن يتفرق كتاب القرآن كإن جعل هذا هوست قوة تكلية معه وإن أنكو عمل فلا حكم كهل كان كيالو إن أنكو عمل فلا واجب هو ولن يتفرق أبو النبي يقول مكة لتجهيا حتى يرد علي الحوض. طيب ساد وذا مقليسين وحول حديث وحو كيالا صحيح مسلم مسلم باورينيا ابن ماجه أيو سيداي الباني اللفظ كلا أيو كوري بير هرتا أولا وحان ربا حديث كصحيح مسلم مصوصاري وشيغيو رواية دا يعني قاب كاو أخرية مصوصاري مسوسارين لفظك مسوسارين كمانا تالنا صحيح مسلم كتاو وشيغيو نكان وليبا بان عادبو مارك تماشى الله صفرست هل يابينو inuu maaragtay maxaan ku dhac been sheega hal yaabina oo waxa weeyaan diintooda ay kamid tahay inuu beenta sheego shiico diintooda ay kamid tahay inta handii aan ka gudbo waxa weeyaan shiicada laftarkooga waxay sameeyaan xadiis al-itra xadiiska loo yaqaano iyo xadiis al-thaqalayn
ayay intay qaadaan labadaas intay isdhexgeliyaan bay kaaga dhigayaan hal xadiis iskana ogsoonow marka ay kuu keenayaan labada xadiis waa laba xadiis oo kala duwan muslim ma soo saarin xadiis riwaayo sheegayso citra weligiina lagama helayo indhoo hadday casaadaanna soo saari maayo keeni maayana haddaba waxaan rabaa ninka beentiisa saad u ogaataan xadiis alcitra waxaa warinayo culimo fara badan rag badan baa warinayo ragga warinaya waxaa ka mid a cabdi ibnu xumayd waxaa ka mid a fasawi waxaa ka mid a tirmidi waxaa ka mid a ibnu maaja rag badan baa warinaya oon koobi karayn hadda xadiis alcitra sixadiisa riwaayo ahaan iyo diraayo ahaanba inaan mar kale dib ugu dhigto oon ka hadlo ayaan jeclahay laakiin hadda waxaan rabaa inaan idin bidhaamiyo un hamba wax yar aan idin tuso un beenta uu sheegayo intaa markaan ka gudubno kitaabka jaamicu tirmidi la yidhaaho sida shaashadda ka muuqato hortiina ah fiirsada waxa weeyaan xadiidka raqamkiisa waxaa timaadaa xadiidka raqamkiisu uu yahay 3788 imo wuxuu leeyahay sida tan u fiirsada waa xadiidka waxaa warinaya saxaabiga loo yaqaano zayd ibnu arqam radia allahu tacaala canhu ardaa wuxuu u fiirsada innii taarikum fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadiluu bacdi axaduhumaa acdamu min alaakhar riwaayada xadiidka hortaa waa taa ayaa warinayo waxa warinaya imaamu tirmidi iyo fasawi fi macrifati taariikh ayuu ku warinaya ayib haddaba riwaayada aad arkaysaan ee tirmidi ku taallo iyo riwaayada ku taallo maxaan ku dhaha saxiixu muslimka isku mid ma aha riwaayadan citradana insha allahu tacaala waxaan idin ballan qaadayaa inaan ka hadli doono insha allahu tacaala intaa haddii aan ka gudubno beentu si ay idinku caddaato waxaan imanaynaa asagana kitaabka saxiixu muslimka yimaada sida kitaabka shaashadda hortiina ka muuqata ayib raqamka xadiidka 2408 u fiirsada wuxuu leeyahay ninka loo yaqaano yaziid ibnu xayaan wuxuu yidhi aniga iyo ninka loo yaqaano xusayn iyo ninka loo yaqaano maxaan ku dhahaa cumar ibnu muslim ayaa u tagnay buu yidhi saxaabiga loo yaqaano zayd ibnu arqam radia allahu tacaala canhu ardaa intaa markaad aragto ka gudub waxaad ii timaadaa inta aan uga dan leeyahay waa intan ii imo wuxuu yidhi u fiirsada xadiidka markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey saxaabiga zayd ibnu arqam ah wuxuu yidhi wa ana taarikum fiikum thaqalayni anigu waxaan idinka tegayaa laba culculus kow hay awaluhumaa wuxuu yidhi ka u horeeyo kitaabullaahi fiihi alhudaa wannuur kitaabka ilaahay weeyaano waxaa ku jiro hanuun iyo iftiin fakhuduu bikitaabillaahi qaata kitaabka ilaahay wastamsikuu bihi qabsadana qabsada oo ku dhega iskuna yacni dardaarma inaad ku dhegtaan saxaabiga markaa zayd ibnu arqam wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu ardaa faxatha calaa kitaabi illaahi waragaba fiihi wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku booriyey wuu ku adkeeyey kitaabka ilaahay in ay qabsadaan ayib intaa markuu ku adkeeyey kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi uma qaala wa ahlu beyti yani waxa weyan iyo ahlulbeytkayga haye udakirukum allaha fi ahli beyti أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي صدح جرب النبي عليه الصلاة والسلام كعلي أنت أمرك أن كجد ابنه كذب أيا وحاد عضي فقال له حسين نك حسين لو يقان أيا وحو كيري ومن أهل بيته أهل بيتك سواعي يا زيدو أليس نساؤه من أهل بيته ميين الضمر كالنبي عليه الصلاة والسلام أي أهين يعني أهل بيت كيسة مركا محوكو زيد وفرس قال وحوكو زيد نساؤه من أهل بيته هوين كيسو
وأهل بيت كيسا ولكن هذا الكلجوس النقي أهل بيته أهل البيت كيسا وحويا من حرم الصدقة بعده وحويا وعد لغا حاران يلي صدقة النبي عليه الصلاة والسلام كقدر قال وحكو يري وحا أرانا يا حسين وحكو يري ومن هم وكواس أييه قال وحو يري هم آل علي هيه وآل عقيل هيه وآل جعفر وانقرني وآل عباس هيه وحو يري وحا كمد لمن صدقة لغا حاران يلي وحا كمد كو آل علي يعني قرابة علي إهل كيسي طيب waxaa kamid ah ree maaragtay aalu caqiil waxaa kamid ah ree aalu jacfar ayaa kamid ah iyo aalu cabbaas qaala markaasuu yidhi kullu haaulaa'i yani xurima sadaqata oo ninka ku odhanaya qaala waayo waa xusein xusein baa wuxuu ku leeyahay kuwaasoo dhan ma waxaa laga xaaraan yeelay sadaqada qaala nacam markaasuu yidhi haa waa laga xaaraan yeelay xadiidka kor ugu noqo oo ma ku taallaa beenaaluhu waxa uu sheegayey ما كتالا هم الرواية الشيء ما كتالا رواية أحد إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ما كتالا كما تالو إذن وحويان مركا هلك على مريو بنت أي شيغان بيكمته هرتو إسكو أكسونو تاقبصو إنت مركا أنك قدبنو سؤاله إني أيان أقود قالينا هذا أن ويدين إنه نمان كان رافضة إذن وحان جعلها مركا سؤالهاسي وسؤاله آد أكرل كمان جوابي كران حتى معممين تودان دايو قيان وأتحدى ولبا رافضة الصومالية وحان لي أتحداكم عر يا إسهوبا أو كجوابي سؤالهاسي سؤالها هندان أقود ابنه وحان لي أنها سؤال شكوبات حديث هرتا مارك تمحاكو لها ثقلين وصحيح ماشا يقدك حديث العطرة أيانو إيمانينا حديث العطرة وحديث سحديث مرم كجرو طرق دي سنة مركا لا اسكو جمعية أيان رقا قاركود ليهين وصحيح مركا لا أيان كهالي دونايو تاوا بلان مرلبات بانكو علي إن شاء الله تعالى انت مركا أنك قدبو وحان لنا هاي سؤالها إنه ينوغا جوابان وقصب حديث العطرة iyo xadiisu thaqalayn isku geysta waxaan leenahay kow annaga haddii aan muslimiin nahay ma waxaanana amray inaan qabsanno kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam mise waxaanana amray inaan qabsanno kitaabka ilaahay iyo citrada ahlulbeytka inaan qabsanno hadday idhaahin waxaanini amray kitaabka ilaahay iyo citrada ahlulbeytka وانا سيدا ظاهر كحديث كلا فهم يئه وحويان يعني مركي إيجا دين عوجا لورا عويان فهم كوجا بعبع عن كهذا إذن وحويان هدي أي سيدا تهاي وحن إذن لأن هاي آيات كم قرآن كهالكيد جينيسان آيات كم قرآن كهالكيد جينيسان الله جل وعلا وحوليه هي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هي إلهي سبحانه وتعالى وحيري وما كان ومسجنان قف مسلم مؤمنة إيا مارك تهويني مؤمنة هندي إلهي إيا رسولك سوح أي قويان أو فالكا سمايا اللي يراهو إن أي خيار ياشان إذن أهل البيت كعاوي مركا حضبا هدي قبصد اللي يري إيا أهل البيت كوح أي قويان ماشا ما كجرتا حاشا وكلاكم أجرت آياتك وحا كمد الله جل وعلا وحوليه إلهي سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وحوليه إلهي سبحانه وتعالى وحد كتر هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هدي عاد أنيقا إجعل شهان الراعة أنيقا واد إجعلان إسانا آوي أهل البيت كالراع وقب صددا هل كي كتالا الله جل وعلا وحوليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلهي إيا رسول كيسو وحا أي ماركت محانكو راها عفوا وحو الرسولكو إذن كانوا هانده قبصدا أيو إلهي سبحانه وتعالى يدي وحو إذن كالريبانا كتغا
aaway ahlulbeytka halkay kaga taala intaa marka aan ka gudubno su'aal labaad baan weydiinaynaa su'aasha labaad waxay tahay aaway ahlulbeytka qabsada la leeyahay ahlulbeytka qabsada la leeyahay aaway halkeen ka helna طيب سؤاشا ما ركت محان كوراها وحصير رعسن وليبا سير راعين أن كسي دبدر يا أن ويدينيا قبصنا أهل البيت كمركا ننليه هي ما وحن قبصنا إن أهل البيت ذات أهانتو ده يدا نفتو ده ميان قبصنا إنا مسوحي كتجين بان قبصنا إنا هدي الذين يجا نفتو ده قبصنا لفتر كوجو بحد ذاتهم أياك أو قبصنا وحاول عقل قال يا ما أهو أهل البيت كوي دينتين بما بنورب قف بني آدم ذاتدي la qabsadana wax lagu aqli ahaanba lagu qoslo oo la yaab leh la yaab bay leedahayba inta markaan ka gudubno haddii aadna tiraadaan waxa laga wadaa ahlulbeytka waxa ay ka tageen qabsadaha haddaad tiraadaanna waxaan idin leenahay aw waxa saxiixa ay ahlulbeytka ka tageen na faraysaan markaan idin keeno riwaayaadka ahlulbeytkana waxaad tidhaahdaan maya saxiix maa waa daciifo maya waa sidan kale halkan kale ka dhacday iyo waxaan jirin baad la timaadaan طيب سؤالها ويسي صعدان وحان لنا هدنا وسؤاشا صدحادين ويدينينا ساسانو مالينيا وحان لنا هاي حديث كني اد اركيسان وحا كم مقضي ما ركت محاكو لها اهل البيت كاي كتر سنايين دمر النبي عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين اني كتر سنايين بمشعد maxaad ummahatul mu'miniin u lacnadaan oo u caydaan inaad caydaan waan cadeynaya insha Allah ta'ala xalaqaadkaygi waxaan ku cadeyn doonaa aan ugu talagalnay ma waxaasaad ummadda ugu yeedhaysaa insha Allah ta'ala waxa weeyaan waxa kamid ahaa aalu aqiil baa kamid ahaa oo aalu abbaas baa kamid ahaa oo aalu ja'far baa kamid ahaa intaas oo dhan ahlul baytka miyayna kamid ahayn maxaa looga tagay kuwa oo loo qabsan waayay ayaka laftarkoogana طيب انت هندي ان كغدبنو waxaan leenahay citradu kutubta ay ka tageen inoo tilmaamo inoo sheega oo saxiix ah wa su'aasha ma aragtay afraad tashanaad waxaan leenahay waxaad sheegataan raafidoy 12 imaam inay jiraan xadiidka ku kaga jira 12 ka imaam ilaan waxa la yiri qabsada ahlul baytka iyo citrada Soomaa xadiidku 12 imaam miyuu tilmaamaya oo ma aragtay maxaan ku raahaa qabsada la leeyahay xadiisay lu gooyaan baa jira kaana waa iigu jirtaa xadiisaanta aan ka hadli doono ayay kamid tahay insha Allah ta'ala طيب su'aashana waxay ahayd su'aashii shanaad su'aasha lixaad haddii aan u gudubno waxaan leenahay ahlul baytka laftarkooga ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisu ma waxay amreen oo la amray ahlul baytka inay qabsadaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga mise waxa la amray inay qabsadaan kitaabka ilaahay iyo ayaka naftooda inay isqabsadaan inta markaan ka gudubno waxa weeyaan Allah jalla wa ala wuxuu inoo cadeeyay uu yiri hadii aad iskhilaaftaan ama nizaac dhaxdiina uu ka dhaco waxaad u noqotaan ila Allah wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa u noqda oo ah yaani ahadiith nabiga alayhi salatu wasalaam iyo kitaabka u xukuntaga oo dib ugu noqda idan hadaba waxa weeyaan halkee miyaana amray markaan isqabsano oo nizaac dhaxdeena uu ka dhaco in aan ula noqono ahlul baytka iyo kitaabka ilaahay halkee ku taala inaad inooga jawaabtaan waan jecelnahay طيب inta marka aan ka gudubno waxa weeyaan su'aasha kala oo toddobaad waxaan leenahay su'aasha afwan sideedaad baan jecelahay inay tahay waxa weeyaan waxaan leenahay ahlul baytka laftarkooga ayaka laftarkooga ahlul baytka ma waxa la amray hadii khilaaf dhaxdooda uu ka yimaado ma waxa la amray inay qabsadaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga alayhi salatu wasalaam mise waxa la amray hadii ay iskhilaafaan ayaka dhaxdooda inay maxaan ku yiraahdaa kitaabka ilaahay iyo ka dhaxdooda aqwaashooda kiiba ma aragtay maxaan ku yiraahdaa ka iskugu dhow oo sawaabka u arkayo inuu qabsado waxa weeyaan in laga jawaabo ay mudan tahay weeyaan su'aashaasina طيب waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga aan ku xidhaya su'aashii ugu dambeysay
markastana su-aasha insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan ku xidho mawduuca. su-aashu waxay tahay shiicadu saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u arkaan bacda nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ridoobeen, diinta ay ka baxeen, ay gaalo noqdeen, walciyaadu billah. kitaabka qur-aanka ragga noo soo guuriyey ayaa gaalo diinta ka ridoobaa lagu leeyahay. waxaan rabnaa markaa saxaabigani zayd ibnu arqam ah, ninka xadiidka warinaya weeyaan. ragga ka warinayana waa niman sanadka marka la fiiriyo waa niman waxa weeyaan ahlu sunna ah. idan waxa weeyaan nimankaasi sanadka idiin soo guuriyey see gaalay agtiina ka yihiin, sidee baad u qaadanaysaan? zayd ibnu arqam saxaabigaasi iniga agtiinana gaal buu ka yahay, nin gaala, sidee baa loo qaadanayaa xadiidkiisa oo maaragtay maxaan ku idhaahaa loo daliishanayaa? waryaa gaal wax ka aqbali jiray, goormaa gaal wax laga aqbalaa warkiisa la qaata oo xujo lagu dhisa? ilaahay baaba yidhiba maxaan ku idhahaa subxaanahu wa tacaala, haddii nin faasiqa uu war idiin keeno iska hubsada gaal baad iniguna ka hadlaysaan. yaa lilcajab, waa agtiina marka wixiina markaan ka hadalna weeyaan, walciyaadu billah. idan waxaan rabnaa su'aalaha in laga jawaabo. intaa ayaan ku gabagabayn lahaa ikhwaani. cid kasta oo dhegaysato kelimadan waxaan jeclahay shiicada meel kasta ay joogto inaad gaadhsiisaan, ama raafidadu meel kasta ay joogto inaad gaadhsiisaan, ay dhegaystaanna. su-aalahan waa su-aalo ayna ka jawaabi karaan waxa weeyaan kuwa Soomaaliyeed iyo kuwooga mucammimiinta ahba. insha allahu tacaala kana faa'iidaysta, weydiiyana mar kasta ay xadiidkaasi idiin soo daliishadaan amba ay idiin keenaan. intaa ayaan ku gabagabaynayaa hadalkayga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وحزبة الشيطان جعلوا الشهور على قياس حسابهم، ولربما كملا لنا شهران، ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل